bandhig dhaqameedkan maanta lagu qabtay garoonka kubadda cagta Moi Stadium ee magaalada Mandera ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada ismaamulka Mandera qaybaheeda kala duwan. Madaxda ismaamulka uu hogaaminayay goboltooraha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Roba iyo mas'uuliyiin ka socotay ismaamulada kale ee dalka. bandhig dhaqameedkan oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa lagu soo bandhigay wax walba oo dhaqanka Soomaalida ku saabsan sida cunnadii, alaabtii lagu dhaqmi jiray, sidii loo guuri jiray oo reeraha loo rari jiray iyo waliba cayaar dhaqameedkii la cayaari jiray. xafladda bandhig dhaqameedka ayaa waxaa ka hadlay mas'uuliyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. bulshadii halkaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa Abwaan Axmed Gaabow oo halkaasi ka tiriyay gabay ku saabsan dhaqankii hore iyo dhaqanka maanta farqiga u dhaxeeyo. أنت برضو نما لنقول شديلة عندنا نقول بكبوتيري نقول بابا كبوتيري لك كلام بيرا قل لي بقولي أمريكا كبر بريال أنت بالك الغطور بلنا فرسان ما هي كل بحسه دكسي باش هذا كل بلايو مركب بسلان هرب نقول شلون بارين عيدا برتك عانا نقول بكبوتيري قاس أبويا بركة ليجيو بريها مسحروني بابا قاس بكبوتيري bukan labio beri sana gerni bastel huyona burdo beera iyo sidi beeyin degi ayaa bawr laga toonay bush aan gerni inuu beeray ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay goboltooraha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Roba oo sheegay bandhig dhaqameedkan inuusan maanta ku ekeyn oo kaliya una socon doono ilaa iyo 11 bisha oo ku beegan maalinta Talaadada ee nagu soo aadan. dhaqankan ku isticmaalo iyo heesaha badan oo hidida dhaqanka ka qusayso heesa geel loo heeso looda loo heeso ariga loo heeso waxyaabo badan oo ka badan dharkan ka soo tagnana waad aragteen programkan maanta berita buu socon doonaa. waxaan rabnaa hatta odayaasha dhalinyarta inay kala soo qabgalaan ayagoo dharka rasmiga Soomaalida ay xiran jireen inay soo xirtaan insha Allah. waxaan rabnaa garoonka dhan inuu wada cadaado aan dhaqankeeni inaan aad uga dambeyn inaan tusno. waxaan rabaa inaan intaan ku soo gaabiyo programku noo socon doonaa maalin walbana isla waxaan maanta aragnaan tusi doonaa ilaa beri dambe insha Allah. bandhig dhaqameedkan maanta lagu soo bandhigay magaalada Mandera ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo noociisa kala ah ee lagu qabtay ismaamulka Mandera waxa uu noqon doonaa mid joogto ah oo sanad walba lagu qabto ismaamulkani. maxamed sheekh maxamed la fagari warbaahinta Star ismaamulka Mandera.